mid baa hadhow iska odhanaya intuu iska kaco cashuurtii maahee hay-ad baa iibsay. dowladda hoose ee caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa ayaa maanta soo bandhigtay qalab iyo warshad dhammaystiran oo ay soo iibsatay. qalabkan ayaa ah mid loogu tala galay in kor loogu qaado shaqada baaxadda leh ee ka socota caasimadda hargeysa, waxaana qalabkan ka mid ah warshad weyn oo loogu tala galay inay samayso shubka noocyadiisa kala duwan. warshaddan samayn doonta shubka ayaa looga faa'iidaysan doonaa samaynta waddooyin shuba, samaynta biyo-mareenno casri ah oo lagaga raysto waddooyinka ay waxyeellada soo gaadhsiiyaan biyuhu wakhtiyada xilli roobaadka. waxaana munaasabadii qalabkan lagu soo bandhigayey ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay uga horreeyaan maayarka caasimadda somalilan ee hargeysa ahna guddoomiyaha golaha deegaanka, maayar ku-xigeenka caasimadda iyo xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee hargeysa. qalabkan ayaa qiimo ahaan dowladda hoose ay ku soo iibsatay qiimo ku dhow 1 milyan oo dollar oo ah cashuurtii laga qaaday dadweynaha reer somalilan ee ku nool caasimadda. ugu horrayntii waxaa halkaasi hadal ka jeediyey duqa caasimadda somalilan ee hargeysa ahna guddoomiyaha golaha deegaanka mudane cabdikariin axmed mooge. waxa uu ka warbixiyey qalabkan iyo sida looga faa'iidaysan doono iyo weliba qiimaha uu ku kacay. waxaa ilaahay mahadiya in dowladda hoose ee hargeysa maanta ay awooday in qalabkan qaaliga ah ee qiimaha weyn jooga lagu qiimeeyey lacag ku dhadhow 1.5 ilaa 2 milyan oo dollar in kombanigii markii uu shaqadiisii dee ay halan ka joogsatay isaga alaabta lahaa ay go'aansadeen inay iibiyaan, in markaa dowladda hoose ay noqotay dadkii danaynayey inay magaalada u iibiyaan qalabkan lacagtii uu joogayna lagama siin. adalkaa inaan saafaan doonayaa, annagu 1.5 milyanna maanaan siisan, 2 milyan uu joogayna maanaan siisan, laakiin lacag 700,000 oo dollar ku dhow ayaanu qalabkan siisanay. qalabkan baahi weyn ayay dowladda hoose u qabtay. baahidaasi oo ah waad ogtihiin magaaladeenu buuro weeyaan, biyo-mareenno badan bay leedahay. waddo kastoo la samaynayana dhowr meelood ayay biyuhu ka baxayaan ama dhinaciisay biyuhu marayaan oo waddadaaba buur ka soo daadegaysa. markaa laamida la samaynayo iyo shubka la shubayo ayaa mararka qaarkood isku qiimo tegaya. markaa waxaanu isticmaali jireen qalabyo kale. markaa in warshaddii shubka shubaysay iyo baabuurkii qaadayey iyo wiishkii shubayey intaba inaanu helnaa waxay tahay in shaqadii dowladda hoose ay tahay wax wanaajinaya oo tayo u yeelaya, dadkana adeeggii ay ahayd inaanu qabanno noo sahlaya inaanu qabanno. waxaa kaloo iyaduna jirta waddada marka tayadeeda la eegayo qalabkaasi somalilan wuu ku yaryahay, manaanaan haysan. maanta waddo kastoo la samaynayo oo ciid la dhigayo qalabkaa cusub oon la isticmaalin ayaa qalabkan aanu markaa iibsanay ku jira oo isaguna markaa inoo sahlayo waddada tayadeedii in la eego. shay kasta oo halkaa yaalla iskamaanaan qiiroon oo iskamaanaan jeclaan inaanu iska iibsanno. wuxuu ahaa baahi loo qabay, shay baahi loo qabay buu ahaa. mid baa hadhow iska odhanaya intuu iska kaco cashuurtii maahee hay-ad baa iibsay, cashuurtii maahee way amaahdeen. waar imankaanu kuu sheeganaa wax la amaahdeyna ma jiro, bangi bixiyeyna ma jiro, alaabtan kaash baanu ku iibinay, cashuurtiina weeye, kombaniguna lacagtiisii wuu qaatay. warkaas haydin galo dhigiina ha galo. wax alliyaalo wax maanta halkaa dee wuu joogaa wakiilka kombanigu, dowladda hoose loo soo raacaya ama bangi odhanaya anaa u iibiyey oo ummadda hor imanaya ma jirto. golaha deegaanka oo golo ka wanaagsan aan u malaynayo hargeysa inay ku nasiib badantay golaha inay hesho xubnaha golaha deegaankana in loo duceeyo oo wanaagga iyo garab joogga iyo shaqada. qalabkan maalintii aanu go'aanka gaadhnay xubnaha ku shaqada la baanu u soo dirnay, annagu waanu ka hadhnay. war golo deegaanu magaalada idinkaa maamulaanu nidhi, ordoo soo eega baanu nidhi. markay soo noqdeen bay nagu dhahdeen kani hadalba ma leh, alaabtan waa la iibinayaa. markaa golaha deegaankuna waa gole sidaa noo barbar jooga oo qorshaha la dejiye ilaalinaya oo wixii yaraa ummadda laga soo qaaday in lagu isticmaalo halkii loogu talagalay isaguna markaasi nagu kor joogtaynaya weye, iyagana markaa in loo duceeyo weye. sidoo kale waxaa dhankooda iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi, waxayna bogaadiyeen islamarkaana ay ka warrameen muhiimadda uu qalabkani leeyahay, iyagoo sheegay inuu ahaa mid aad loogu baahnaa. ahaan waxaan ahay mas-uulka shirkadda iibinaysay qalabkan dhamayska tiran
qalabkan oo ka kooban baaji balaantii shubka shubaysay mixeradii qaadayay shubka cagafyadii ka shaqaynayay tower lightskii survey instrumentkii qalabkii ugu dambeeyay surveyga hadday GPRS-kii tahay hadday total stationkii tahay hadday tahay combustion testkii hadday tahay dhammaan qalab dhammaystiran oo aan mar quraata laga heli lahayn waddanka gudihiisa laakiinse shirkadda jarmalka ah ay ugu tala gashay inay ku dhammaystirto mashruucan biyo ballaarinta duruufo jira dartood ayaa keentay inaan qalabkan iibinno. qalabkani waxa uu wax badan uu ka tari doonaa mashaariicdii horumarineed ee dhanka infrastructure-ka ee caasimadda Hargeysa golahayga deegaanku ay wadeen. waxa ugu muhiimsan ee aan hoosta ka xariiqaya waxa weeye waxa ay maanta ay dawladda hoose ay yeelatay shubkii warshadii shubka sameeysay oo runtii wax badan ka tari doonta tayada wadooyinka aynu sameynayno. insha Allah waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in caasimadda Hargeysa ay la tartami doonto caasimadaha kale ay la tartami doonto macdaadka runtii qiimaha badan ee karasharka leh ee qalabyada kala duwan leh ee cagafyada iyo noocyo kala duwan leh. insha Allah waxaan rajaynaynaa in qalabkaasna shakhsiyaadka wadi doona ay maamulka caasimaddu insha Allah iyaguna lagu ilaalin doono oo qalabkaasi أو مددر إن شاء الله أو نقول دونه قلب عاصمة هرقيسة إيو إنتهاء الليكت هاي إن لم يدم أنت ودوين كذا النور دي سهدي لهيد ما تدخل في ليان marka qalabkan arka waxa laga yaabaa inay yiraahdaan britaalka la dilaacinayo waddanka oo cayn kale oo hadii la beedrinayso weyn baa la sameeyaa waxa ay iska fikiraan laakiin waqti bay u baahan tahay inaguna waynu samreynaa waqtiga u baahan tahay waa shaqo farsamo gacmeed farsamada gacantuna waxyaabaha in u baahanna bay kamid tahay. waxaan leeyahay caasimaddu waxay soo maray intaasoo guddi waxa soo maray intaasoo maayir waxa soo maray intaasoo xildhibaan maanta nasiib waxa uu yeeshay in qiimaha intaa leeg iyo qaayaha ay u yeeshaan xildhibaanada uu maayirka hogaaminayo oo ku dadaalay wixii loo dhiibay ee cashuurta ahayd ayagoon meel kale u doonin ayagoon hay'ad ka doonin ayagoon cidna u baryin inay maanta ku dhiiradaan oo soo bandhigaan qalabka laynaloo sheegay qiimihiisu 1 milyan iyo badh yahay ee dollar oo gacanta ku dhigeen oo maanta caasimadda iyo waliba wadannada kale ay nagu maanta majeeranayaan ilaahaasaynu horta ugu mahadnaqaynaa. waxaan aaminsanahay wax badan qalabkaasi wax badan inuu ka tari doono wadooyinka caasimadda Hargeysa iyo maxay leeyahay agabka loo baahan yahay iyo kaabayaasha kale ee aan wado u ahayn ee ay dawladda hoose dhisayso. marka aad baan runtii ugu faraxsanahay.